الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. guud ahaanba gobolka Togdheer ee magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer saaka si rasmi ah loogu waday tukashada salaatul ciid al-adxada waxaana ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda cadaaladda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland barasabka gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Nafaqo gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Burco Cabdirasaaq Qaro qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada bulshada qaybaheeda kala duwan barasabka gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Ibraahim Nafaqo munaasabadaasi ka hadlay ayaa fariin adag ku diray shacabka qaybihiisa kala duwan ee midooyinka u dambeeyay ku hawlanaa deegaanaysiga cusub sharafta badan ee isugu timi halkan maanta inaan ku weynayno maalinta weyn ee ciidul adxa waxaan marka hore idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mar labaadka waxaan leeyahay ciid mubaarak taqabbal allahu minna wa minkum saalix alacmaal kullu caam wa antum bikhayr ilaahay sanadka sanadkiisa ciidiisa ilaahay hayna ku gaarsiiyo barwaaqo iyo bashbash iyo caafimaad iyo nabadgelyo boorta waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala ilaahay inuu inoogu naxariisto maalintan qiimaha badan ee barakaysan marka hore nabadgelyadeenna innagaa ku nool iyadoo kuma noola inaan nabadgelyadeenna ilaashano oo aynu la shaqayno laamaha amniga wixii jira mar walba laamaha amniga aan la soo socodsiino beryahanba waxaad arkayseen meelo badan dad badan oo qaylinaya oo leh hanala soo gaaro dowladda dhexe hana soo gaadho nabadgelyo daraa jirta dhul baa nala ka qaadaya waxaan filayaa dadkaasi inay waxaan jirin inay u yeeranayaan inay ka waantoobaan annagaa dowlad ka ah Burco iyo gobolka Togdheer wixii naga tafdheeraada annaga ayaa dowladda dhexe ula qayshanayna laakiin waxaad moodaa dad gaar ah inay ku shaqaysanayaan waxyaalaha aan waxba ka jirin oo runtii ay kaashanayaan inteena halkan joogtay in badan oo kale caafimaad iyo nabad ku soo gaarsiiyey waxaynu ilaahay ugu mahad celinaynaa inuu inagu simay ajarka maalinta Carafa iyo ciida adxa oo ilaahay dartiina aynu u soonnay u ducaysanay khayr iyo barako iyo baraaranu ilaahayna u weydiinanaa ilaahayna abaaraha inaga jebiyo ilaahayna qalbiyadeenna isu soo jeediyo waxaan idinkula dardaarmayaa waqtigu iska kooban yahay salaadii bayna sugasee inaynu nabadgelyada ilaashanno maamulka gobolka iyo maamulka maanta waa maalin cibaado weeye waa maalin ilaahay gacmaha la hoosaysto waa maalin la ducaysanayo waa maalin sadaqada la badinayo waa maalin la iscafiyayo waa maalin la isalaamayo waa maalin la isbooqanayo waa maalin dadka jilicsan ama xanuunsanaya la booqanayo hoos loo eegayo waxaan codsan lahaa inaad dhallinyaradiinna maanta xilka idin haysa iyo ciidamadiinna xilka inoo haysa inaad maqashaan oo taladooda qaadataan isku duubni ayaa lagu fulin karaa horumarka gobolka iyo horumarinta qaranka waxaan halkan ka soo gudbinayaa anigoo xalay runtii xilli guuraha ku yimi salaantii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee saaka oo kale uu muslimiinta kula ciido u kala diro gobolada iyo degmooyinka iyo daafaha waa Siciid Cali Cismaan Xaalays telefishinka caalamiga ee gobonimo magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer.